zayd ibnu sucna ninkii la odhan jiray caalim buu ahaa xabr caalim yahuudeed buu ahaa nebigaa dayn ka qaatay calayhi salaatu wasalaam xilligii daynka lagu ballamay in la celiyo iyadoo aanan la gaadhin ayuu ninkaasi nebiga fursad buu la eegtay fursad caynkeeya saxaabada nebigu isagoo hareeraha ka socdaan oo suuqa magaalada madiine ay dhex marayaan ayuu nebiga xagga dambe intuu kaga yimid buu nebiga go'isii hunguriga kaga qabtay ilaa nebigoo indhuhu casaadaan cumar binu khadaab baa seefta galka ka saaray markaa buu ninka yahuudiga hadlo wuxuu yidhi yaa muxamed haddaad tihiin buuhi nimankiinan carbeed ee quraysheed in badan baan nila noolaynoo nila mucaamaloonayno xaqa bini aadanka aad ka qaadataan ma soo celisaane aniga xaqaygiisii buu ka yidhi markaa buu nebigu sidaa u dhoolla caddeeyey cumar binu khadaab baa seeftii la soo baxay oo yidhi yaa rasuul allah kaafirkan yahuudiga qoortaa ka gooyey igu fasax markaa buu nebigu yihi cumar may seeftaada galka ku cesha buu yidhi soo dhowow cumarow sidaa si ka duwan ayaan aniga isaguba kaaga baahnayn buu yidhi inaad isagana ku tidhaahdid muddadii daynka in laguu celiyo laysku ogaa maalmo ayaa ka dhimana dee ha gaadho anigana aad igu tidhaahda nebi allow dee daynka dadku kugu leeyihiin dee waxooga iska sii laakiin cumarow sidaa kaamaan helina middi baad seef baad la soo baxdo waad ka nixisee 80 saacoo timirana waa intuu igu leeyahay sii 20na ugu dar buu yidhi waa intaad ka nixisee gaalada ayaa imika dadkan zamankan dambe ka dhaadhicisay in badan diinta islaamku adduunka seef bay ku gaadhay dagaal may akhlaaq bay ku fiday diinta islaamka boqolkii 90 diinta islaamku waxay ku fiday khuluqun xasan dabeecad wanaagsan dulqaad badan naxariis badan sabir badan duco badan dadaal badan oohin badan asbaabtaa buu nebigu risaaladiisa ummadda ku gaadhsiinayey cumar binu khadaab ninkii buu kaceeyey baytalmaalkii buu keenay intiisii markuu siiyey buu 20 kalena ugu daray waa kana qaado uu dhaxay ninka yahuudigii war intan anu malihii buu ka yidhi intan aniga nebiga amar igu siiyey inaan kuugu daro waa biiro oo maxaan lagugu biiriyey sababtaan kuugu biirinina waxa weeyaan waa seeftii een kuula soo baxeen kaa nixiyey buu nebigu igu yidhi ugu abaalgud intaas ugu abaal celi markaasuu ninka yahuudigii alaabtii oo dhan intuu dhulka dhigay buu yidhi cumarow zayd binu sucna ninka la yidhaha ma maqashay markaasuu yidhi ma ninka caalimka yahuudeed haa ma ninkaabaa tahay haa ninkaa baan ahay oo adoo nin caalim ah oo diintii hore towraadna wax ka yaqaana oo towraadna weliba lagu sheegay nebiga sifaadkiisa iyo inuu imanayo maxaa kugu kalifay nebi maxamed jidka dhexdeeda weliba iyadoo aanan la gaadhin muddadii daynka in la kala qaato lagu ballamay ilaa daynku wakhti buu leeyahay shuruud buu daynku leeyahay oo lagu kala qaataa aayadda qur-aanka ugu dheerna daynka ka warramaysaa iyadoon xilligii la gaadhin maxaad nebiga sidaa ugu dhibaysay buu ku yidhi sifaadkii nebiyada lagu sheegay oo dhan muxamed waan ku arkay buu yidhi ilaa 2 mooyaane labadaas sifana nebi maxamed kama soo daahiri karayso ilaa la taabtaabta mooyaane sifada koobaad waxa weeyaan jaahiliintu markay xaqiisa ay ku xadgudbaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jahliga loo geysanayo ee jahaladu ay xaqiisa ku xadgudbayaan dulqaad unbaa nebiga uga ziyaadee maba cadhooda buu yidhi waa sifaadka nebiyadu ay leeyihiin cadhada nebiyada iyo dulqaadkoogana marka laysku qiyaaso waxaa qaaliba oo sarreeya dulqaadkoogaa sarreeya dulqaadkooga shahaadateynka iga maqal buu yidhi hortaadaan ku laqinaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh isagoo islaamay oo cumar uu gacanta hayuu nebiga u keenay nebiga hortiisana uu ku ashaatay imika waddankan aan joogno ummad kalaa inala nool imisaan akhlaaqdeena ku bedilay ibraahim aladham allah ha u naxariistay ayaa nin gaala oo ay wata ayaa u yimiday markaasaa lagu yidhi sheekhaasi waa sheekh ibraahim baa la yidhaahyo waa nin caabid oo rabbaaniyo ilaahay buu ku xidhan yahayo dadka muslimiinta agtoodana qiimo weyn buu ku leeyahay ninka yahuudigii baa soo qaaday aygiisii buu soo qaaday baa la yidhi markaa buu sheekh ibraahim aladham oo halkiisii fadhiya buu ula yimiday
يا أخي إبراهيم ما دقا اللي يقول هذا مركز ها إبراهيم بالله إبراهيم أذهب ها ما دقا ها سؤال ما كويدين ما تكحن ناقي ما يويدي إن شاء الله يويدي أدقا أي متكفل لبنا بوكيدي نقال أو أن سكودين حين هذا الكاكور الله هذه كورة سيء الله سو دقال ما سو ما هذا شيخي دلكو وفكري وحودي كل كان دينتو الله يسوع صار ربك قيامه هدي كتاب كيجا قعنت مدق ليجا سيون جنة قالوا مالك أيجا أنا كفل لبدن بوكيدي لكن كل كان دينتو بقول إلهي ما بقدره هدي كتاب كيجا قعنت بدح ليجا سيون نار ليجو تورو أيجا أمر كيجا كفل لبدن بوكيدي ونس كيجا دقاقي نكي أيجي تو كتجي أيو شيخي انتو راعي بوكيدي أشهد وحن مرق كاغا دغنا يا ادغنا إلهي هرتيسنا مرق اديغا نقطا أخلاق ذا اديغو لا دغميسو واخلاق دي انبياء عليهم السلام هلك بنك كو اسلامي أخلاق ذا وناكسن وهلك دينتين اسلامك ugu sareysa weeyaan waana meesha la doonayo muslimiintu nabigeena kaga daydaan sallallahu alayhi wasallam sidoo nabigu reerkiisa ula dhaqmaayay أخلاق وناكسن استوصوا بالنساء خيرا خير بو نبي قردو مركينا كلا دردار ما خير كو هذا مر والبا الصيرات إلهي بقى قلدا نيقول دحري مالك لا ودقاق ميسا أدي كو فدد أقل كي كسوغيسا وبد كاغانا وي كو كورينيسا أديغانا وي كو رالي قلينيسا iyadoo haddana hawshaa dhan qabanaysa ayaa gabadha muuminada haddana guriga dhexdeeda ilaahay ku adeecaysa markaa buu nabigu oran jiray saxaabadiisa waxa igu maqala rag reer Madiina xaasaskooga inay dilaan laakiin waxa nii sheegaya buu nabigu ragga dumarkooga dilaya kuwa inigu khayr badan ma aha buu rasuulku kuwaas khayr ma la buu rasuulku yiri kuwaas khayr ma leh dardaarankiisa u dambeeyay markuu dhimanayayna salaadu nabigu umada kala dardaarmay salaada iyo dadka maaragtaane aan milkinay ee ilaahay gacmaheena uu soo galiyay waa haweenka baa la yiri iyo adoomaha labada ayuu nabiguna kala dardaarmay xuquuqdooda in la iska ilaaliyo wargaabu nabigu oran jiray akmalul mu'minina iimanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaa'ihim wa ana khayrukum li ahli ba nabigu yiri akmalul mu'minina iimana mu'miniinta kuwa iimaankooga uu dhameystirmay waa kuwa dabeecadda wanaagsan buu nabigu yiri kuwa inagu khayr badan buu nabigu yiri waa kuwa reerahooga u khayr badan buu rasuulku yiri ana reerkayga u khayr badan buu rasuulku yiri ana reerahayga u khayr badan sagaal dumara ayaa mid walba hadii la wareysto la oran lahaa xaasaska nabi maxamed uu jecel xaasaskiisa teebi ugu jecel yahay hadii la yiraahdo mid walba waxay oranaysaa nabigu aanu igu jecel yahay هذا الحن ما أورن جري النبي قال هذا مركع عريسيان أو كأمس جري بس وليبا مركي مالنتي ما ركتاني عائشة يا حفصة في سورة تحريم الله وككورم إن تتوبا فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير مركي النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركيس أي شرقولك أسميين وشرقولك سميين محوها وحير هذين وكي إلهك قورم سورة الأحزاب ومركي الدولة الإسلام كو أي دقالها شيء إما قال هذه المدينة مركي صحابة الدقال أي قادان بوحي لصو نقضان غنائم حولو دقال لصو نقضان مركي بهاوينك النبي قو صلح علينا وحير هذين الدولة الإسلام كو دقال يلتي هديت ولي نبي قو مصاريفها نو سميو إريادا بمركي سلدح وريقين markaasaa nabiga jibriil ku yidhi dumarkaagii way kuu shirqooleene ilaahay wuxuu ku amray inaad ka hijrooto hijra meel buu nabigu iska galay markaa keligii iska seexdaa lama hadlo cunto uma doonto ma ag jiifsado bas ilaa magaaladii madiina waxaa ku fiday war la leeyahay nebigu xaasaskiisii u wada furayba أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيا صوبودي دهنا مركز ويمد إن أنتي عائشة رضي الله عنها مركز يقول أبا يفرس السؤال مرة بينا كويدية وسؤال شو محيط هاي بيكتر أبو نبي يقول مو كفري ما مفرن بالدم بتكون دعدين ها ومحاني قدعي
de wax kale ma odhane nebiga weli umaba sheegin isage laakiin annaka dhexdeedii baa waxaan isnidhi nebiga ha loo bandhigo ha la weydiiyo ha la yidhaahdo dowladdii islaamku dhaqaale yeelatee nebigu biil iyo masaariif hana siiyo intaas ma inta un ba ahaa cumarna uu socdo xabsi u tegey xabsana u weydiiyey cumar sidii si la eg bay ku tidhi marka deedna markaasaa nebiga sal alla alay wasalam aayadahan la leeyahay kala doorashada ee dumarka nebi maxamed ilaahay uu kula hadlayo la leeyahay yaa ayuha الnabiyu qul liأزwaajika in kuntuna turidna alxayaaةa الdunya waziinataha fatacaalayn umatickuna wausarixkuna saraaxا jamiila wain kuntuna turidna allaha warasuulahu wاdaara alaakhirة faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna أjra cadiima aayadaha kala doorbidashada ayaa nebigeenna markaa ku soo degay oo la leeyahay waxay aayaduhu ku socdaanna waa dumarkii nebiga calayh isalaatu wasalaam xaasaskii nebigay ku socdaan oo la leeyahay ilaaha iyo rasuulkiisa iyo jannada oo dhinaca iyo adduunyada iyo ziinadeed oo dhinaca kala doorta baa lagu yidhi dadna markaa nebigu wuxuu ka bilaabay xaasaskiisa tii ugu jeclaa buu ka bilaabay ikhtibaarkaas waana tee caaisha radia allahu canha markaa buu nebigu u yeedha caaisha waxii baa soo degey waxigaa kala saaraya haddeetoo leh caaisha waxii baa igu soo degay ininku niga warramaya waxigaas ininkuna inagu socdaa waana kala doorasho waana kuu sheegaya qaraar qaadashada ha ku degdegine aabbaha iyo hooyadaa baa noole la soo tasha buu ka yidhi markaabay tidhi waa hagaaga bal horta ii sheeg aayadihii qur-aanku nebigu ku dul akhriyo markaabaa caaisha tidhi ma hooyaday iyo aabbahay baan kala talo gelin bay tidhi nebi maxamed iyo ilaah iyo jannada may hortaadaan ka qirayaa bay tidhi nebi allow maanta intii ka dambaysana adduunyo dambe qalbigayga ku soo dhici mayso adduunyo dambena ku weydiini maayo waxaanan marag kaaga dhiganayaa markhaati aad iiga noqotaa anuu waxaan doortay ilaaha iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiraan doortay maanta wixii ka dambeeyana adduunyo dambe ku weydiin maayo bay ku tidhi markaasuu nebigu yihi haye way kaa dhan tahay adiga markaabay tihi sida aad aniga ii weydiisay soo xaasaskaaga dambena u weydiin maysid markaa buu nebigu yihi ha mid walba saasaan ugu bandhigi buu ku yidhi markaabay ku tihi haddaba aniga doorashada adiga iyo ilaahay aakhirada aan doortay dumarka kale ha iiga sheegin bay ku tidhi halkaa maxaad ka fahmaysaa markaas ile dumarka maseerka ilaahay baa ku abuure waxaad moodaa inay rabta nebiga inay keligeed la soo hadhaba say u yareg tahay de deedna markaa buu nebigu sal alla alay wasalam yihi may wallaahi baan ku dhaartay buu ihi iyakuna ima weydiiyaan oo ima yidhaahdaan caaisha maxay dooratay haddayse i weydiiyaan buu nebigu yihi anna waan u sheegi buu yihi nebi naxariis badan buu ahaa moogtahay oo dadka ilaalinaya buu ahaa hadday i weydiiyaan oo i yidhaahdaan caaisha ayay dooratay anna wallaahi ka qarin maaya buu nebigu yihi xabsuu ku xijisiiyey yaa rasuulla caaisha maxay dooratay ii sheeg caaisha anay dooratay anna adaanku doortay de ya salaam lanna nebiga sal alla alay wasalam dee doorashadiisu ciyaar maaha dee shaksi caadiya maaha waa nebi rasuulah sayid اlkhalqi weeyaan khayru man daba calaa wajhi اlardi arlada korkeega qof ka khayr badan isaga maba soo marin baa la yidhi aqalkuu joogo naxariistaa ku soo degaysa aqalkuu joogo jibriil baa imanaya calayhi الsalaam aqalkuu joogo barakaadka ilaahay baa ku socda waxyigaa ku soo degaya aqaladiisa markaasa kulligood ikhtibaarkii way ku wada najaxeen waxay yidhahdeen ilaah iyo rasuulkiisa ayaanu doorannay bay yidhahdeen maalintaasuu nebigu yar cadhooday maalintiina nebigu dumarkiisa uu ka aamusay ma caytamin xataa marka uu nebigu yar cadhooday wuxuu odhan jiray yaa xafsa itaqi illaah yaa caaisha itaqi illaah erayadaa buu odhan jiray inaku laakiin maanta ereydeen isticmaalla bay kula tahay markii saxaabadu dagaalkii khaybar ay yuhuudda ku soo jebiyeen dadkii sabiga ahaayee ee la soo qaaday magaalada madiine lagula soo noqday gabadhi ugu quruxda badnayd baa nebiga loo doorbido nebiga la siiyey waa safiyata bintu xuyey um lmuminiin radia allaahu canha markaabay saxaabadu ku yidhahdeen nebi allow dadkii aan soo qaadanay gabadha ugu qurux badan ayaan adiga kuu daynay ku yidhahdeen qaada nebi allow
للزمن قاس دتك مركي عيدا مركي دقال قادان عيدا كي كلا قال هذا أي جبيان الرجي أي نقدان وحلا لاي يوحنا وعمي يوح بحصد أي نقدان يوحلا الصحر أي نقدان الذي يريه الرجاء يودن كان كو أبورنا سينا أضيع من أيا شريعة الإسلام واحد كده غنيمة السبي بلا سبي الفي إلا السوق هذا دتك مركزي أو دتك مسلمين تمركزي عدالة الله قيبيه مرجع واحد دعي سنين إن لبا قف للسيو متصدح للسيو متأفر للسيو مد للسيو نبدأ أنت قياسته كده على السيد هذا ندقال كلا الله بحاي قال هذا والله يقول سنة يقول قولش إسلام قال صعوتا ما قالوا يندن أو أبدي الدمر كهرين بالسوق هذا إذا كي ووينا سدت كاس مسؤولية دود إلا يقول عينه وضيع من أي مركان النبي قلت السوق هذا صحابته أيا مسلمين الله قايمين يا وما ملكت أيمانكم وياه حاسسك سنة وحال أورنا يا والدمر كوجي وسك جورسنا يا وسك قبيانا واحد لنا وأبد مسلمة مركان هو نيداس وآذو قروح بنيت بنبي قال السيء مركان النبي قوي مدع عائشة يا حفصة وعند قبضنا والله يقول ده يقول أي كانه ده عروس بان هي قلبي يبدو قبضنا أرض يسي الديارية مركان سأوتجين مرك قال لي مركي أوجلين وابا قبر قروح بدن با كوض قروح بدن با يك ويش قصبا حفصية عائشة ويس إيجا لبدا سنة دنا عبي كوض السعوديين موقتها ودمر كالنبي قبل لي قارنا عائشة حفصة دنا عوه قامين يسي قارك كلنا أم سلمة هو قامين يسي بالليدي يا جويرية مركز سدا وإيجا والله تان هدو النبي عاو والله سيحدو دبدا بيني حسوسا مايو مركبي وأسوها جاجين ويكسر نقدين حفصة النبي كورت مده حفصة بالكورن يا رسول الله دوي رصد دواء كاهر رساي وكوها جاجين بالهروس هاي بحال أركتي ده يهوديات بان أركب بالهروس عبي كتير هذا أنا عايشة كورت مده عريسا عايشة واسيه هنا يا بالكورن والله كاهر رياي ده كورن بحال أركتي ده يهوديات بان أركب أرضك مركب النبي يا عايشة اتق الله ومسلمات قبل دبول يا رسول الله ويهودية دوتك بكتري مركز النبي قوي مدة تضبع شو مركز لا جوجا يدي مركز صوب بغضان دمركم مالكين النبي يقول رجل لا جوجا يدنا مركز دمرك أيوة إيمان أيوة مركز وعروسدي والله ما ولينا يا صفية بنت حيي والنبي قال هبي نصوه يدي يدو قويس بل سيد النبي قال دمرك سولا رقم يا وكل إلى ليني مركز النبي صلى الله عليه وسلم كل محاكو هلا الله قويس مركب يا رسول الله دمر كاغا قاركود مركي إي مادان وحي إليهن ويهوديد وتما يتما وعائشة يا حفصة رضي الله عنهم مركب النبي يقول ده وجواب ده محان يقول جواب وارون تودو أنا ناقي يهوديد أنا هيكون وقبل عربية ده قبل عربية ويعني مركب النبي يقول كويدي ساد يقول جواب إنساني كأكو شيء كل كيهوديد دي يقول هذا واحد كتر هذا نياده يدقيسته أنا أباهي النبي بو أها أذير كين النبي بو أها زوج كي يقولون والنبي محمد بل ناقتي انت هسو النبي لا حديد لا حديد لا يالتي اسكسو دح صار كل ابو كيودي النبي أبهيد والنبي بقى اللي يقولون النبي هارون بكو أبتر سنيسي أذير كين مركا يقول نغنيا موسى كليم الله زوج شيخنا ومحمد عليه الصلاة والسلام مركاسي هبين كيف مركا النبي كوسوه صفية مركا هاي صفية ما أنت فرحت بك أبو قتيب الورن ولا دو مركا قسلان ما أنت أقل بيت النبي الله ديوان كو حدا بيت خلاص أنت عادي شيكتون ما كو إريو ويس أجاجانون وحن كو إرون نامالي والبانية يهوديات بدي لسه تاجنتين ودي لتي ما دانو يهوديات دوم بدي قو حسانة أنا قاعد بحي ورث ما تقنن ما وهارون باكو أبتر صدانو والنبي أدر كينا وموسى كليم الله والنبي زوج كينا ومحمد والنبي ونوجا هينك النبي إنه النقابه لكن بناكت النبي كو أبتر ستين أنا جاهين كو صور شيء بيت هلك صور دقة وعيتنا مالين تبا قدام بيسيد دومر كي النبي محمد وكو هذا القاضي إن يرادان يهودية خلق ده إنك أنا أخلاق ده الله ينسيه ساسو النبي حاسس كيس ولما عملونا وكلا إلى لنا في بعض كتب وحا كتب تو كلا نبي قال سيه مركاسا
way u soo galeen dumarkii nebigu markaasay arkeen quruxdeeda iyo jamaalkeega markaasay tiri nebiga marka la salaamayo maxaa lagu salaamaa luqada carabiga anigu ma aqaanay bay ku tidhi markaasay ku yidhaahdeen markuu nebigu kuu soo gala ee habeenkaa dawaa caroos oo kugu soo hoydo nebiga waxaa lagu salaamaa yaa rasuula allah acuudu billaahi minka yaa rasuula allah ilaahay baan kaa magan galay markaas laqad cudti cadiiman buu nebigu yidhi ilaahii weynaa baad iga magan gashee marba haddaad ilaahay iga magan gasho aniga xaasii noqoni mayside orodoo dadkiina u teg buu nebigu ku yidhi iska sii daaya taana markaa buu nebigu yidhi dumarkaasi siday ii galeen bal eega caawa ma dagaalamin ma cadhoonin kaftan badnaa calayhi salaatu wasalaam ilaahu akhlaaqda inankana nasiib ikhwaanii waxaan ka wadaa xataa tarbiyadda awlaadda nebigu siduu u tarbiyadaynaayey khudbadda mambarka isagoo taagan buu arkay nebigu xasan iyo xuseen oo yaacayo soo galay masjidka uu ka dhaadhacay mambarkii nebigu labadoodii buu soo xambaaray mixraabkuu nebigu la yimiday mambarkii dusheedii wuxuu ihi labadaa markaan arka ma joogi kara buu hayla yaabina buu yidhi ilaahow labadaa waan jecelahay cidda jeclaatana jeclow cidda labadaa nacdana ilaahow nac buu nebigu yidhi labaduu nebigu sidaa ugu jeclaa ummaddiisa ummaddani maxay ugu abaalgudday ma taqaanaan labadiiba waa la dilay xuseenna qoortaa laga gooyey xasanna sun baa lagu dilay sun maxabadii ahlalbeytkana shiicadu waa taa la weecatay bukdigii ahlalbeytka ay necbaayeen khawaarijiintuna waa kuwa diinta sida leebka uga baxa qaansada waa kuwa uga baxay waa cali iyo qoyskiisa shiicana cali maxabadiisay ku gaalowday khawaarijiintuna nacaybka cali iyo ehelbeytka ay necab yihiin ayay ku gaaloobeenee daaqadda kaga baxeen labadaasuu nebigu yihi ma joogi kara markaan arkee ilaahow ninkii jeclaadana jeclow ninkii nacana ilaahow nac salaadda isagoo tukanaya hadduu yimaado xusein uu nebiga dhabarka ka fuulo nebigu sujuudda unbuu dheeraysanaya la yidhi waa sunnaha markuu nebigu tukanayo xuseenna dhabarka nebigu unbuu iska dul fadhin ku ciyaarayay dhinac nebigu xuseenna uu ciyaarsiinayaa xagga qalbigana nebigu ayuu kaga xidhan yahay ilaahay buu kaga xidhan yahay uu dhunkaday xaabis bnu aqrac nin reer miya ayaa nebiga u yimid oo yidhi yaa rasuul allah ubadka ciyaalka maad dhunkataa haa waan dhunkanaa buu yidhi waa ubadkeeni walla anu 10 wiil baan dhalo weli midna kama dhunkan buu yidhi markaa buu yidhi dee maxaan kuu samayn haddii qalbiga ilahay raxmaddaada uu ka saaray maxaan kuu sameeyaa haddii ilaahay qalbigaaga uu naxariistii uu ka saaray maxaan kuu sameeyaa buu nebigu yidhi man laa yarxam laa yurxam ninka aanan naxariisan buu nebigu yidhi ilaahay isagan uma naxariisto cumar binu khadaab siiradiisa waxaa ku taalla isagana nin saxaabada ka mid ah cumar u yimid oo yidhi anigana maaragtaane dowladda islaamka waa ta ballaarateen madax iga dhig oo magaalo waali iiga dhig oo magaalo ii dhiib markaasuu cumar ku yidhi radia allaahu canhu waa runtaa waa hagaag waad u qalantaa in magaalo lagu dhiibo laakiin noodkaad ku shaqo tegaysa barraa kuu diyaarinay subaxday u soo gal laha buu ka yidhi wuxuu yimid cumar binu khadaab oo ciyaalkii uu dhalay iyo kuwii awowga u ahaa la ciyaarayo oo dhunkanayaan oo isna uu dhunkanayo markaasuu yaa amiira almu'miniin oo ciyaalka yaryar ma la dhunkadaa markaasuu ha se ubadkayga ma wallaahi anugu weli ciyaalkayga midna ma dhunkan buu yidhi markaasuu cumar ku yidhi warqaddaan kuu dhiibay bal ii soo celi uu ka qaaday uu ka jexjeexay aqalkaaga fadhiisa buu ka yidhi oo reerkaaga u naxariiso horta reerkaagii baad u naxariisan weydaye ilmahaagiiye sideed ummad ugu naxariisan buu ka yidhi ninka mas-uul noqonaya waa inuu ahaadaa nin cadaalad samaynaya ninka mas-uul ummaddan u noqdo doonaya waa inuu ahaadaa nin naxariis badan ninka mas-uul noqonaya waa inuu ahaadaa nin ummadda ka fikiraya mustaqbalka ummadda ka fikiraya taasay haayeen saxaabada rasuulku iyo nebi maxamed sal alla alay slam awlaaddooda wakti bay ku bixinayeen diintay ku tarbiyadaynayeen inaku maanta waxaa leenahay ilmihii iskuulna waa dhigtaa dugsi qur-aanna uu dhigtaa macallinka dhabtu waa hooyada iyo aabbaha hadday labada gurigooda ay ku hagaagaan dhexdiisa oo ubadkooga guriga ku tarbiyadeeyaan ilmuhu tarbiyadda aqalka uu ka soo qaato bannaanka ula soo baxaya maalin dhoweytaan sheegayey cabdulqaadir jaylaani allah u naxariistee siiradiisa waxaa ku taalla isagoo yar agoon buu ahaayo yaraan buu aabbihii kaga dhintay hooyadii baa dhaqaale intay soo siisay ku tidhi safarkaa magaalada u socda raaco orodoo cilmiga culummada ka soo baro safarkii iyo dadkii uu la socday ayaa niman tuugoo mooryaana dhexda u galay
deedna markaasa waa habeen madow qof walba markaa wixii uu sahay haystay iyo lacag haystay buu qarsanaya markaas marka tuugi horeeyay baa qabtay isagii oo waryaa yaroowe maxaad istaado marka lacag badan buu sheegay soo saar oo u dhiibay lacag aad u badan waa maxay lacagta inta leg hooyadii baa soo siisay oo xageed la tagaysay طالب العلم baanaho magaaladan tagayo xalaqaadka masaajidda ka socdaan ku taxmaya deena waa masaarifteedii sanawaad aan cuni lahaayo hooyadii baa soo siisay oo dadku waa kuwa wuxuu ka qarqarsanay naga qarsanaye adu maxaad waxaaga ula dhumo weydood meel adag u gashan weyday wuxuu hooyadii baa igula dardaaranto igu tiri waliga been ha sheegin hadaad been low noqotaa ilaahayna uu ku nicib bini aadamkuna way ku nacayaan war been halaha xataa gaaladu ma jeceshahay ya been halaha cidna ma jeclo daalimka cidna ma jeclo ballan baajiyaha dadku ma jeclo tuuga dadku ma jeclo caaqul waalideynka dadku ma jeclo mufsidka dadku ma jeclo hooyaday baa igu tiri buu yidhi weligaa been ha sheegin haddaad been hala noqotaa ilaahayna uu ku nici bini aadamkuna way ku nacayaan u ooye ninkii gacantuu qabtay tuugiinta tuugii ugu weynaa buu u geeyey bal ilmahan wuxuu leeyahay dhegayso uu dhagaystay kiina uu ooyey maxaad la ooydayn baa lagu yidhi tuugiinta ugu weynaa wuxuu yidhi hadday hooyadii la mid noqon lahayd aniga hadday hooyadii la mid noqon lahayd aniguna tuug ma noqdeen buu yidhi bal fiirso tarbiyadda waalidku ilmaha saamayn bay ku yeelataa tarbiyadda waalidku mustaqbalka ubadkayna hagaajisaa maanta inaku markaan aabbayaasha ka sheekaynayno maxaan idhahnaa may naga fiicnaayeen mise waan ka fiicannahay bal sheega de say nooga fiicnaayeen innakaa ka oqon badane oo ka ree magaalsane bal sheega way naga dadnama fiicnaayeen xataa sida maanta inaku aan diinta aan u maqalay ee culammadu ay nakay noogu dadaaleen iyo kamaa loogu dadaalay may helin ma helin 50 sano ka hor 30 sano ka hor saxwada maanta inaku aan haysanno iyo dacwadda iyo culummada iyo maaragtaan ijtimaacyada iyo khayrka socda iyo kumay helin inakaa ka jaamacado fiican inakaa ka aqoon badan inakaa technology soo gaadhnay maanta inakaa ka aqalo qurux badan inakaa ka muwaasalaad fiican inakaa ka itisaalaad wanaagsan adduunka daafeega kii joogay ayaad maqal iyo muuqaal imika sida aad u daawanaysa haddadan way la socdaan baan u malin dadka adduunka jooga way dhegaysanayaan dadnimada iyakaa naga fiicnaa laakiin xagga materiyaalka inakaa ka materiyaal badan haddaad leedahay aabbayaashayo ayakoo teknolojiga inaku maanta aan haysaneen soo gaadhnay iyakoo aanan soo gaadhin ayay naga dadnimo fiicnayn haddaan leenahay kuwa inaku aan dhali doono say noqon doonaan bay kula tahay kuwa aad dhali doonto sidee noqonaya kuwa anu aan dhale sidee ku damay doonaan kuwaan dhale kuwa si dhali doonaan siday noqon doonaan bay kula tahay